بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومحمد عبد العيسى وحن كترسنا ciidanka booliska Soomaaliyeed muddo laba sano ka hor waxaan naloo qaaday xamar anagoo ah dhalinyaro yani magaalada imtixaan laga geliyay oo booliska Soomaaliyeed lagu daray xamar baa waxaan ku soo qaadanay tababar ku saabsan dambi baarista hay'ad Bancroft Law oo tababarisay sanad waxaan ku jirnay school bulisiyo sanad school bulisiyo streesonka booliska iyo sanad hay'ad Bancroft Law oo nabsiinayay tababarka ciidan yani habka baarista casriyaysan waxaan hadda soo laabanay muddo 3 bilood ka hor waxaan la shaqeynaa laamaha amniga booliska Puntland marka sidoo aragtaa in tababar soo qaadatay oo soo laabatay haddana halkan aad ka howlgasho adigoo u shaqeynaya bulshada Soomaaliyeed wallahi aad baan horta ugu faraxsanahay markii ugu horeysay ciidanka booliska qoranayay waxaan arkay in baahi ay jiro aan loo baahan yahay in dhalinyaro cusub oo firfircoon la geliyo booliska maadaama dadka hore ay qaarna daaleen qaarna yani aqoon u baahan yihiin marka habkan hadda nala baray waa habka casriga ah ee baarista aad baan ugu faraxsanahay inaan u shaqeyno wadanka si mutadawacnimo marka maxaa ku soo kordhin doontaan maadaama dhalinyaro aad tihiin tababar casri soo qaadateen habka dambi baarista iyo habka booliska maxaa ku soo kordhin wallahi horta hadda muuqataa inaan wax badan ku soo kordhinay because dambiyada ugu badan hadda magaalada ka dhaca special Garowe anaga naloo keenaa anaga baarna big crimes baa la dhahaa marka dambiyada dilka kufsiga dhaca waxa soo dhan anaga baarna waana ka muuqata magaalada way ka yaraadeen si yani maxkamadda si saxda ahayd baan u shaqeynaa laamaha waxay soo maraan booliska anaga naloo keenaa waa baarna qofka anaga maxkamadda geeyna dan qofka haduu dambi leeyahay anaga cadeyna haduu dambi leeyahay anaga cadeyna marka aad baan ugu faraxsanahay waxaan hiigsanaynaa inaan hal qof oo dambi waa dhacaya mar walba laakiin waxa loo baahan yahay dad markiiba ka jawaabeen lahaa laama amni oo markiiba ka jawaabay marka waxna loo diyaariyo waayada sarkaal booliska Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah Universal TV ku soo dhaw wareen magacaaga waa dhawahay walaalkiis Kamaal Cabdi Cali waa la yiraahdaa magacayga saddexan waya Kamaal waxaad ka mid tahay ciidamada booliska Soomaaliyeed haatan halkan ku sugan bal dareenka alxamdulillah rabbil caalamiin horta aad ayaan u fiicanahay ama dareenkaygu hay buu yahay sababtoo ah saakay waxa xaflad waxaa munaasabada noogu imaaday taliyihii ciidanka booliska federaalka Soomaaliya Sarreegaas Bashiir Cabdi Ameerika isagoo daqiiqadaha soo socda ku sii wajahan dalka qaybo kamid ah ama gobolada dalka qaybo kamid ah aad ayaan u faraxsanahay saakay waxaan dareemaynaa farxad iyo guul waxaan dareemaynaa isdhexgal guud oo aan isku dhexgalno ciidamada federaalka iyo ciidamada maamulka waxaan isugu jirnay waaga hore niman arday ahaan jiray waxbarasho kadibna ciidanka ku soo biray waxaan u rajaynayaa dhammaan dhalinyarada bahweynta Soomaaliyeed ee waxbarashada wada sida iskoolaadka jaamacadaha inay dalkooda iyo dadkooda wax qabtaan oo si xalaal ugu shaqeeyaan ayna iska ilaaliyaan laaluuska iyo waxyaabaha la mid ah dalkana daacad u noqdaan maxaa isleedahay ku soo kordhin karaan Puntland iyo ciidanka booliska maadaama dhalinyaro horeyna wax baratay aatiin haddana tababar soo qaatay wallahi waxaan isleeyahay dalka horta hore waxaan u shaqeynaa dadka intii wanaagsan si wanaagsan baan u shaqeynaynaa wixii xunna waa ka shaqeynaynaa oo xumaatada waa ka soo qabanaynaa magarata dalka iyo dadkana daacad baan u haynaa kor walba waxaan ilaalinaynaa shuruucda iyo dalka u taalla iyo nidaamka dawladda ama qaranka Soomaaliyeed wuxuu ku dhisan yahay waa ciidanka booliska Soomaaliyeed xooguna waa ciidanka booliska Soomaaliyeed sababtoo meel kasta dhibaato ka dhacdaba waxa loo diraa waa boolis maanta hadii qarax dhaco hadii ibtila kala dhacdo hadii hawl kala dhacdo waxa loo dirayaa waa boolis military loo dirimayo sida laajiligeed marka anagu dhib kasta diyaar baan u nahay waxaan sida awgeed baan ugu soo birnay inaan dalkeena dadkeena wax u qabanno yara oo kamid ah ciidanka booliska Soomaaliyeed sidoo walaal magacaaga waan dhawahay walaal magacaygu waa Maxamed Saciid Maxamuud ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed waayahay Maxamed Garowe ayaad ku sugan tahay waxaadna ka mid tahay ciidamada booliska Soomaaliyeed ee halkan ka howlgali doona sidoo aragtaa maanta inaad tababar soo qaadatay aad ku soo laabato Garowe haddana aad ka howlgasho bismillaah marka hore ilaah baa mahad iskale waana su'aal aad iyo aad u muhiimsan horta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay
because of waxa weeye wixii aan ku haminayay muddo dheerna u soo galgalanayay rafaadna u samarayay hadda rafaad dheer kadib iyo waxbarasho dheer kadib hadda waxaan ku faraxsanahay inaan joogo kana shaqeeyo maxaa yeelay waxaan diyaar u ahay sidii lay soo carbiyeyba inaan dalkayga iyo dadkayga wax u qabto naftaydana u horo si iyagu u noolaadaan waana ku faraxsanahay aad iyo aad waxyaabaha aad qaban doontaan maxaa ka mid ah bismillah horta wax walba markii cadaaladda ay ku bilaabaanin negative positive bay noqonayaan waana wanaagsanaya wajiga ka soo baxaya marka annaga kaliya muhiimaddeena waxa waaye wax walba inaan cadaalad horkeenno cadaaladana ku shaqeyno sidii naloo soo tababaray horey bay ahayd dhalinyaro Soomaaliyeed baa jirta oo wax bartay haddana baagamuudo ah ciidanka Bileyskana aan ku biirin dawladda dhalinyaro aateen hore wax barateen ciidanka Bileyska ku biireen tababar baa soo qaateen haddana dalkii ay shaqeynaysaa si dhalinyaro Soomaaliyeed fursad uga faa'iideystaan maxaa ku dheelaay dhalinyaro Soomaaliyeed horta aad iyo aad baan ugu boorigelinayaa uguna dhiirigelinayaa inay ka mid noqdaan dadka samata bixinaya dalka iyo dadkaba waxaan leeyahay si aad dadkiina iyo dalkiina u samata bixisaanin waxaad ku dhiiranaataan ama talaabo hore ah ugu qaadaanin inaad ka mid noqotaan ciidanka booliska maxaa yeelay sharaf iyo cis iyo karaama ay ku jiraysaa xaq alle iyo xaq alle iyo xaq bini'aadantinimada waxay noqonaysaa dadka dhisan bini'aadantinimadiina waa dhismaysaa diintiina iyo waana ku difaacan kartaan xushmadiina iyo karaamadiina sahrow goormaad baratay booliska waxaan bartay sanadkii 2017 baan ku biiray ciidanka booliska anoo ku soo tababartay akademiyada General Kahiye ee ku taala magaalada Muqdisho kadibna waxaan dib ugu soo laabtay Puntland oo aan ka shaqeynay David marka hore aad qoranaysay booliska xagee baad ka qoratay waxaan ka qortay halkan waxaan kaga qaaday imtixaano iyo waxaan u soo galay inaan soo dhiibno CV-ga iyaga kadibna imtixaanka waxaan ku galay dad gaaraya 100 ما شاء الله dadku soo baxday baa ka mid noqdo 20 qof ah dabcan mid dhalinyaro baad tahay waxana waad baratay saafilayo maxaa ku kalifinaad booliska Soomaaliyeed qarato wallahi waxaan ka jawaabayay baaqi markii madaxweyne Farmaajo la doortay uu ku baqayo ahaa in dhalinyarta Soomaaliyeed ay ku soo biirtay ciidanka booliska ee dalka u difaacaan taano ka jawaabaya igu kalifteen aan ka mid noqdo hadda soo aragtaa tababarkii waa soo qaadatay garowa ku soo laabatay bulshada baa u shaqeynaysaa bal soo aragtaa dareenkaaga wallahi runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anoo runtii ka jawaabay baaqi madaxweynaha qaranka dhalinyarta kale Soomaaliyeedna waxaan leeyahay dalku inagu inoo baahan yahay dalkaan u shaqeyno marka isleedahay waa ka bedeli kartaa ciidanka booliska Soomaaliyeed wax badan baan ka bedeli karaa barnaamijyada because of waxaan nin aqoon leh adigu level jaacadada ka wax badan barnaamijyada inaan ka bedeli karo dalkuna wuxuu u baahan yahay dad aqoon leh si cadaalad dhameystiran loo helo